sida aan ka warqabno waxaad safar dacwadeed ku tagtay gobolada waqooyi bari sida gobolada Puntland. waxaan maqalnay afhayeenka ururka al-shabaab oo leh waxaan u weerarnay Puntland si aan u gaarsiino shariicada islaamka. su'aashaydu waxay tahay gobolada Puntland kuma noola miyaa dad muslimiin ah mise gaalo ayaa ku nool? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. waxaan isleeyahay su-aashaasi meesha kuma jirto. sababtu waxay tahay mujtamaca Soomaaliga asal waxa waa inuu yahay mujtamac muslima. shacairtii diiniga ahayd wax badan oo ka mid ah la imaanay. بالتالي in la isweydiiyo ma gaalba ma muslimba dhiiggiisu ma bannaan yahay mas'ale meesha ku jirta maaha. ninka shacab muslim ah gaalaysiinayana waxaa korkiisa ku xaqiiqoobaya waciidka iyo goodiga adag ee ku soo arooray masaladaas oo ka mid yahay xadiidka nabigeena sallallahu alayhi wasallam saxiixaynkii qeyrkood ku yimid. ninkii walaalkii ku yidhaahda yaa kaafir ama yaa caduw allah, gaalkiyow ama cadowgii allow, midkood bay ku noqonaysaa buu nabiga sallallahu alayhi wasallam. ruuxa hadalkaa ku yidhi hadduu gaal yahay ama cadow ilaahi yahayna isagay kelimadu qabsanaysa. hadduusan ahayna meel cidlaa dhici mayse kii hadalka yidhi bay ku soo noqonaysa. waxay ka mid tahay axkaamta la qaato iyo waxyaalaha lagu hadlo ee carabkaaga ka soo baxa kuwa ugu waaweyn oo ugu culus bay ka mid tahay in dad muslimiina gaalnimo lagu xukumo. nabigeennuna sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay inay imaan doodaan dad qur-aanka akhriyay, diinta wuxuun ka akhristay, oo dadka muslimiinta iska gaalaysiin doona. marka xadiidkii xudayfa markaasaa la weydiiyey nabiga sallallahu alayhi wasallam midka wax gaalaysiinaya gaalnimada ku habboon oo mudan mise kan la gaalaysiinaya? nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam bal irraami, kan gaalnimada tuuraya ee dadka iska gaalaysiinaya ayaa inuu gaaloobo ka mudan kan uu gaalaysiinayo, isagaa uga dhow. marka masala culus weeye. allahuma ruuxii si ahaantiisa ula yimaad wax gaalnimo keena ama ficil ama hadal gaalnimo keeni karo, ruuxii goonidiisa u yimaado lagu ogaado, kaas waa masale kale. ruuxaas iyo xukunkiisa goonida ah ayaa markaasi la fiirinaya. iyadoo halkaa masalada lafteeda ahlu sunnuhu ay kala qaadayaan ruuxa la fahaantiisa in la xukumo iyo falkiisa iyo ficilkiisa in la xukumo. dhowr goor saan uga soo hadalay cidda xukumaysana inay tahay cid ahlu ah. shuruud iyo dawaabid bay leedahay markaa lafteeda. sidaas daraaddeed waxay ka mid tahay aafada iyo fitnada waayahan jirta kuwa ugu culculus bay ka mid tahay in muslimiinta la gaalaysiiyo kadibna dhiigooda saa lagu bannaysto. xilligii nabigeennu uu dhintay dhowr iyo 30 sano kadib, maya dhowr iyo 20 sano kadibna aafadii soo baxday bay ahayd khawaarijtu ay la timid. saxaabadii iyo ummadda waxaan iyaga ahayn bay inay gaalaysiiyaan kadibna dhiigooda bannaystaan. nabiguna sallallahu alayhi wasallam aad iyo aad buu uga digay, meel xunna waa gaadhsiiyey arrinkooda adduun iyo aakhiraba. marka in fikirka aad la isaga jiro wallahu a'lam.